دستور أيوله دولة قلمك وحوله أستان بوله ومطبع كل شيء سي تاريخ بوله قفك إسكت إنه بدله ما كيرونه ما كقارن ضامه أنا وكمل مقعي عبد حسن علمي أنا وكمل دولة قلمك قلها شرع الدجين تبارمان دولة قلمك وأنا عدينا إن لو حد قبل دستور كدولة قلمك يوحي على كل شيء بلا قلمك يمعملني قلمك كل شيء أنا رستو waxaan ka hadlaynaa waxay tahay anaga dabashiisiin diidi mayno dhuusama reeb waa walaalahayn galmudug ay nala leeyihiin waan soo dhawaynaynaa in ay maaragtay galmudug ka mid noqdaan laakiin maamulka galmudug matala ee hoggaanka u hayay wuxuu marsiiyey waddo qaldan dastuurkiina wuu ka leexday waxaan rabaa anigu meesha inaan ka hadlo inaan raadinno qof kasta oo galmudug ka soo jeeda maqaamka ay leedahay inay ku matasho galmudug diyaar baan u nahay waana soo dhawaynaynaa halkanna waxay ahayd caasimadii ku-meel gaarka ahayd ee galmudug ay ku shaqaynaysay ma istaahisho in laga dhaqaaqo oo meeshii iyadoon dadka laga tashan la dhaqaaqa ma aana mudnayn laakiin annagaa isxaal marinayno annagaana soo ceshanayna galmudug cayaar kuma dhismeen dhib badan bay ka soo martay ayadoo afarta koone ay galmudug dadka u dhashay ku kala xirxiran yihiin dadka reer cadaadaha salka u dhigay halkan badan baan u soo gallay ayadoo 2 sano aniga madaxweyne la doortaan ahaa ayadoo 2 sano noo hartaan aniga madaxweynihi waxa madaxweyne ku-xigeenka labadeedaba ka sameeyay waxaan uga sameeyay in galmudug hore u socoto galmudug dib u dhac ma ka rabno dadka reer galmudug baa iska leh shakhsi ma leh shakhsiyaadna ma leh kuma rastagrifali karaan ugaaska wakiilkii ugaaska waxa go'aankii ay gaareen odayaasha reexaati Saleemaan waxay go'aan ku gaareen markii ay arkeen oo ay fiiriyeen inuusan waafaqsanayn shirkii Jabuuti uusan waafaqsanayn dastuurkii iyo nidaamkii lagu dhisay galmudug markay arkeen oo ay tashadeen waxay go'aan ku gaareen inaysan waafaqin oo qaadacaan shirkii Jabuuti laguna saxiixay xarunta bahalkii fila Soomaaliya